Ninkan oo shalay saxamada ku dhaqi jiray maqaayadda dugsiga, maalintii xigtay wuxuu dugsiga ku yimid gaari qiimihiisu aad u sarreeyo. Markuu arkay masayrka indhaha dadka ka muuqda, wuxuu garwaaqsaday inuu runtii noqday nin hodan ah. Hase yeeshee sababta arrintan oo dhan waxay dib ugu laabanaysaa maalin ka hor. Wakhtigaas ninku weli wuxuu ahaa arday sabool ah oo ka shaqaynayay dugsiga, cunto u adeegaya arday kasta oo imanaya. Si kedis ah ayuu telefoon uga helay aabbihii oo u sheegay inuu guursaday haweeneyda ugu taajirsan magaalada. Sidaas darteed ninku wuxuu yeeshay 4 walaalo ah oo aad u maalqabeen ah. Mid ka mid ahna waxay u timid dugsigiisii hore si ay u kaxayso uguna sheegto inuu shaqada ka tago oo guriga yimaado. Markuu warkaas maqlay wuu amakaagay, balse ka hor intuusan jawaab celin, aabbihii ayaa hore u jaray wicitaanka. Wuxuu u qaatay in aabbihii sakhraansan yahay oo riyo ku jiro. Intuu shaqadiisii ku noqon lahaa ayay hortiisa timid gabadhiisii saaxiibadda ahayd. Wuxuu siiyey hadiyad uu mushaharkiisa oo dhan ku iibsaday, balse isla markiiba waxaa yimid nin dhalinyaro ah oo hodan ah oo gabadha daba socday, kaas oo hadiyaddiisa ku jeesjeesay kana siiyey hadiyad ka qaalisan. Gabadhiina waxay aqbashay hadiyaddaas, xiriirkiina way jartay iyadoo sheegtay inay la joogto ninka hodanka ah. Iyagoo weli ninka ku jeesjeesaya ayaa cod kale soo dhex galay, waxay ahayd walaashiisii labaad. Kulankoodii ugu horreeyey ayay siisay hadiyad aad qaali u ah, arrintaas oo qof walba ka yaabisay. Gabadhiisii hore qoomamo ayay muujisay, balse si adag ayaa loo amray inay ka tagto. Ninkuna wuxuu guriga ula tegay walaashiis, halkaas oo uu ku arkay guri aad u raaxo badan, isla markaana hooyadii cusub siisay kaar bangi oo hadiyad ahaan loogu diyaariyey. Wuxuu u maleeyey inuu riyoonayo, balse gabadha ugu weyn ee reerka, oo ahayd guddoomiyaha dugsigiisa, ayaa diiday guurka waalidkood iyadoo ku eedaysay ninka iyo aabbihii inay maal doon yihiin. Ninku wuu diiday kaarka si uusan u dhaawicin guurka aabbihii, inkastoo qalbigiisa uu ka jeclaa inuu hodan noqdo. Markaas ayuu helay awood uu ku arki karo waxyaabo qarsoon iyo dhacdooyinka mustaqbalka. Tani waxay u saamaxday inuu ogaado khatar ku soo fool leh dugsiga, inkastoo markii hore aan la rumaysan. Maalintii xigtay, digniintiisii ayaa run noqotay, dadkuna waa la badbaadiyey. Isla wakhtigaasna ninku wuxuu dugsiga ku yimid gaari cusub, taas oo mar kale keentay masayr iyo hadal badan. Gabadhiisii hore waxay isku dayday inay dib ugu soo laabato, balse markay ogaatay inuu weli shaqaynayo, uusan ku tiirsanayn hantida, way ka labalabaysay. Ugu dambayn, isagoo iska indhotiraya jeesjeeska dadka, ayuu furay gaarigiisa si uu u baxo, waxaana hortooda ka soo muuqday 2 haween ah oo qurux badan. Halkaas ayay sheekadu ku sii socotaa.